ururka kawahaliyada hogaanka bulshiyo hadoorado hagaa umadiyo iboolaha halkay ku kulmeen dadkeenu ururka kawahaliyada hogaanka bulshiyo hadoorado hagaa umadiyo iboolaha halkay ku kulmeen dadkeenu ilinka dimuqraadi horumare hubaaliyaga horseeduwa dadkana waa ilu soo kacayo ergaar siiyo haraatiray ilinka dimuqraadi horumare hubaaliyaga horseeduwa dadkana waa ilu soo kacayo ergaar siiyo haraatiray habliyo dhami wiilal howlkara wax wada doono hankooda leh u yeelan dadkiyo dalkoodana ururka ka haybad weeyaan hormoodkooduna saciidani habliyo dhami wiilal howlkara wax wada doono hankooda leh u yeelan dadkiyo dalkoodana ururka ka haybad weeyaan hormoodkooduna saciidani ururka kawaalbeegyada dadkani ku hirtay leegsiga hantida shacabkiyo hugoodii halganka tooska hirkiisii ururka kawaalbeegyada dadkani ku hirtay leegsiga hantida shacabkiyo hugoodii halganka tooska hirkiisii hawshay u hayaan dadkeen ka idinkana guulaysta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururka kaah meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa maanta aan qardha la joogno waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga puntland oo ay ka mid tahay qardho 53 sano kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan 53 sano 1968 baa doorasho ugu dambaysay runtii waa guul u soo hoyatay dadka reer puntland waa guul u soo hoyatay magaalada qardho iyo ayl iyo ufayn oo nasiib u helay inay ka dhacdo doorashooyinka hordhaca ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay uguna qanacsanahay sida dadka reer qardhood ay maanta isugu soo baxeen u muujiyeen taageerada kaah ugu heellan yihiin inay codkooda ay ku doortaan golaha degaanka ee degmada qardho ee runtii sida hufan oo garashada dheer looga taxadaray iyadoo qorshaha kani qorsho cusub u yahay waxaan runtii ku faraxsanahay in aysan ahayn dadka la soo xulay dadkii keligood ahaa ee mudnaa waxaan aaminsanahay dad fara badan oo mudnaa oo urur ka tirsanaa inaysan nasiibka u helin waxaase ku kalsoonahay waxa maanta la dooranaya waa degaan oo keliya ururku wuxuu yeelan doonaa doorashooyin kalaa soo socda kuwa baarlamaan baa soo socda kuwa kaleetaa soo socda ururada gaarka ah ee garabyada u ah waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya waxa ugu weyn ee ururka kaah uu rabaa inuu bulshada reer puntland u soo bandhigo waxa weeye inay taladii ay ku soo celiyaan inay dadka ay doonayaan inay hoggaamiyaan ay doortaan inay talada ka wada qayb galaan waxaan filayaa mashruuc kaas ka weyn oo 53 sano loo soo bandhigay ma jirto
waxaan mudan tahay kaah maadaama ay ahayd maskaxdii kaadirkeedu waxa ay ka soo maxdeen waxay u baahan tahay hiil waxay inaga baahan tahay hiil waxay qardho inaga baahan tahay hiil waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwo ku shaqeeya siyaasadda ururka waxay kaga duwanaan doonaan golaha kani haddaad doorataan ma aha gole intii la doorto sidii kuwa horeeto qof walba wuxuu doono iska samayn doono wuxuu noqon doonaa gole u hoggaansami doona siyaasadda iyo barnaamijka ururka waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwo aan la xisaabtanno oo aan daba soconno oo khaladkooda keliya aanan eegine marka horeba aan u diyaarinno inay najaxaan oo ay guulaystaan oo ay bulshadooda u shaqeeyaan waxaad og tihiin barnaamijka siyaasadeed ee ururku waxaan rajaynayaa in golayaal kaleeto iyo fagaarayaal kale lagu sharxi doono maanta waa maalin taariikhi ah shalay waxay ahayd maalintii ugu horraysay ee ururadu ay soo bandhigaan tartankooda maanta waxaa nasiib u helay ururka kaah inuu isu soo saaro taageerayaashiisa waxaan ku faraxsanahay inaan maanta inagala qayb galo isu soo baxan ballaaran oo lagu taageerayo dimuqraadiyadda oo lagu taageerayo ururka kaah oo lagu taageerayo degganaanshaha iyo xasiloonnida iyo horumarka aan tiigsanayno ururkan waa ururkii dhallinyarada ururkan waa ururkii haweenka ururkan waa ururkii odayaasha ururkan waa ururkii aqoon-yahanka ururkan ururkii waxa weeye danyarta ururkan waa ururkii magaca ka beddelay dadka la odhan jiray barakacyaasha oo ka dhigay muwaadiniin reer qardhooda waxaan rajaynayaa inay maanta iyo mar horeba mar dambe aysan barakac noqon doon waa muwaadiniin reer qardhooda waa xubnaha ururka kaah waxaan rajaynayaa waan uga abaal celinaynaa muddadii ay ku sugnaayeen qardho qaybta ay ka qaateen horumarka degmada iyo guud ahaan puntland haddana waxaan rajaynaynaa inay qayb ka qaataan hoggaaminta dadka iyo ujeexidda mustaqbalka wanaagsan ay la jeclaayeen oo ay ugu yimaadeen ay ku degeen waxaan iniin rajaynaynaa dhammaanteen guul waxaan isu soo noqon doonnaa marar badan oo kaleeto dhallinyaradu waa lafdhabarta aasaasiga ah ururkan waxaad ka garanaysaan xubnaha la soo xuray waa dhallinyaro muxsin oo halka ka hadleeyey waad aragteen nin dhallinyaro uu ahaa guddoomiyaha u sharaxan degmadu waa nin dhallinyaro ah dadka kaleeto waa wada dhallinyaro codkiinna waxaa la rabaa inaad kaah siisaan intiinnan waa intii kaah oo codkooda la hubay laakiin waxaan ilaga rabaa dhallinyarada kale ee magaalada jirta inaad soo xaraysaan oo ururka ay u codeeyaan oo golaha degaanka ee ururkan inaad u codaysaan waxaan rajaynayaa guul waxaan iniin rajaynayaa horumar waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu